Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada kanaalka FM Aadan. Fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar, siina share gare muuqaalkan. Kuna soo dhawaada shanta dal ee ugu muslimiinta badan dunida. Wadanka Indonesia. Wadanka Indonesia waa wadanka ugu horeeya ee ugu muslimiinta badan dunida. Tirada dadka ku nool muslimiinta ku nool waxay gaarayaan 229 milyan oo qof. Dalka Indonesia wuxuu dhacaa koonfurta bari qaaradda Asia. Wadanka labaad waa wadanka Pakistan. Tirada dadka ku nool wadanka Pakistan ee muslimiinta ah waxay kor u dhaafayaan 200 milyan iyo 400 oo kun oo qof. Dalka Pakistan wuxuu dhacaa koonfurta qaaradda Asia. Wadanka saddexaad waa wadanka Hindiya. Tirada dadka muslimiinta ee ku nool waxay kor u dhaafayaan 199 milyan oo qof. Dalka Hindiya wuxuu dhacaa koonfur bari qaaradda Asia. Wadanka afraad waa wadanka Bangladesh. Tirada dadka Bangladesh ee muslimiinta ku nool waxay kor u dhaafayaan 700 oo kun oo qof. Wadanka shanaad waa wadanka Nigeria. Nigeria dadka ku nool ee muslimiinta waxay kor u dhaafayaan 99 milyan oo qof. Wadanka Nigeria wuxuu dhacaa galbeedka qaaradda Afrika.